Asalaamu calaykum ardayda maanta halkan waxaan ku wadaa part 2 oo proverb proverbka waxaa la dhahaa all that glitters is not gold. Wax kasta oo dhaldhalaalayo ma ahan dahab baa laga wadaa. All that glitters is not gold. Wax kasta oo dhaldhalaalayo dahab maaha. So waxyaaba badan waxaa jiraan oo markii muuqaal ahaantooda aad fiirisid very attractive ah oo kusoo jiidanayo ama soo jiidasho leh. Very impressive oo cajiib ah marka aragtid aad u qurux badan oo muuqaalkooda aad ka helaysid oo la amakaagay sometimes waxaa jiraan very valuable ah outside-ka markay joogto oo asleeda waa wax aad u qiimo badan oo qaali ah laakiin waxaad ogaataa intaas oo dhan markaad aragtid ma ahan not actually good, ma ahan kuwo fiican or true, ma ahan kuwo run ah oo dhab ah or worthwhile ama u qalma lacagtaada u qalmin amaantaada u qalmin wax kasta oo wanaag ah oo adiga aad ku sifaysay uma qalmaan markii banaanka kor la joogo waay because waxaa la yiraahdaa appearances can be misleading aragtida qacda hore way ku wareerin kartaa ama meel khaldan bay kaa ridi kartaa so wax walba marka qacda hore aragtid oo aad ula cajabtid oo quruxdooda iyo isleeda waxaan wax qaali ah ama qiimo badan ama aad u cajiib ah wax kasta oo adiga mar walba aad arkaysid ama qof bilaadan ha noqoto ama shay ha noqoto wax kasta oo dhaldhalaalayo wax kasta oo qurux badan wax kasta oo adiga ku cajiib geliya wax kasta oo isleeda wax qaali ah ka fiirso isla markiiba tika siinin hadhiin waxa wax sida adiga aad kula muuqdaan bay yihiin hadhiin ka fiirso waa laga wadaa haddaba markii la sharaxayo proverbkaas ama mahmadaas waxaa la yiraahdaa some things may shine but that shine can hide flaws, dishonesty or low value. The proverb reminds us to look beyond surface appearances and judge things carefully. Dawa maxayna leedahay this proverb waxay leedahay some things ama something may shine shay ama wax waxay samayn karaan way dhaldhalaali karaan ama way qurux badnaan karaan but laakiin that shine dhaldhalaalkaas can hide waxaa ku qarsoonaan karto ama qorin karaa flaws cilado qaladaadyo oo waxyaabo ku qarsoon waa quruxda sare waxbaa ku qarsan oo gudaha camal kaga jiraan tusaale ahaan oo kale qaladaad iyo cilado bay yeelan karaan dishonesty daacadnimo ku jiri karto or low value wixii adiga u malaynaysa very valuable wuxuu noqon karaa wax low value ah oo qiimihiisa aad u yar yahay. The proverb mahmadan reminds us waxayna xasuusinaysaa to look inaan fiirino beyond in ka baxsan surface appearance muuqaalka koro oo dibadda ah mid in ka baxsan inaan fiirino ayayna xasuusinaysaa mahmahdani iyo sidoo kale judge things inaad shayaasha ama waxyaabahan anaga u malaynayn inay qurxan yihiin inaan ku xukuno carefully si taxadar leh haddaba marka Soomaali ahaan waxay noqonaysaa wax kasta oo dhalaalaya markaad aragtid adiga dirbadiiba inaadan dhihin waxa way fiican yihiin laakiin aad ka fiirsataa waxyaabaha dhaldhalaalaya waxay noqon karaan alaabo shayaal dad wax kasta oo bilaadanka ku hareeraysan bay noqon karaan guri qurux badan baad aragtay dabaq la dhisaayo oo qurux badan cajiib ah daas oranin dabaqaas uu qurux badan yahay dirbadiiba u guuradhin laga yaabo inuu kugu soo dumo ama dabaqa burburo ama waxaa arkaysaa telefoon ama shay qaali ah waxaad leedahay waa qurux badan yahay waana qaali sababtoo ah waa fiican yahay waa iibsanayaa guriga markaa geysidna wixii way halaabi kara wax badan oo sidaas waa la arkay haddaba tusaalayaasha aan ka bixinayna maxay tahay dadka kale people waa dadka haddaba maxaa ku jiro waxaa lagu leeyahay may seem friendly waxay u muuqan karaan dad wanaagsan oo lala saaxiibi kara innocent oo daacad ah but later hadhowdiina you discover they are selfish and blah blah all ciladaha lahayn baa soo baxayo waxaa arkaysaa qof furfuran oo naxariis badan ama wanaag fara badan sameynayo oo daacad u muuqda arkaysaa qofkii markaas sii baratid oo sii dhexgashid ciladihii uu lahaayo dhan baa banaan kusoo baxayo wuxuu noqon karaa qof selfish markii leeyahay qof oo aanan
asaga moogi wax cid kale anaani weeyo selfish markii la hayo Soomaali anaani weeyo qof aniga bas wax walba aniga igu fiican yihiin aniga bas in la naxariistaa rabaa aniga bas in la wanaajiyaa rabaa aniga uu leeyahay inuu wax baxsho ma rabo soo qofkaas oo kale marka hore wuxuu isaga ka dhigayaa qof wanaagsan oo wanaag la saaxiiba ama wanaag fara badan sameeyo oo daacad buu isaga ka dhigayaa weji uusan lahayn buu xirtaa la wejiyada lagu dhaaf Soomaaliga qofkii marka hadhow sii dhexgashid min muddo yar oo kooban buu isqarin karaa wax badan isma qarin karo wejigiisa dhabta uu la soo baxaya marka hadhowdii waxaa leedahay oo saa ma moodeen I wish I knew camal soo dadka marka noocaas iskugu jiraan dad waxaa sidoo kale jiro oo adiga marka hore aad moodaysid inay gacan furan yihiin ama inay wax baxshaan hadhowdiina noqonayo dad selfishiin oo bakhailiin oo very stingy oo ha bixinin sidoo kale the opposite dad wanaagsan oo markooda hore markii la arkayo waxyaabo negative laga aamino oo lagu soo degdegin oo laga baqo ama la siirayo qof xun weeye kacar oo hadhow markaa baratidna qof wanaagsan kusoo baxayna way buuxaan soo marka assumptionka ama xukunka oo aad durbadiiba lagu degdega anaga Soomaali haddaana u badan yahay ma fiicno waxa marka hore baro si deeply ah u fiirso kadibna xukunkaa saar mbabde sidoo kale example-kana kale waxaa weeye productska maxaa weeye they may look flashy design and amazing but they easily break su'aalahaan oo kale waxaa arkaysaa qalinkan qurux iyo design qurux badan loo soo sameynayaa aragtida hore qacda hore marka aragtu soo jiidanaya wax qurux badan buuna u egyahay laakiin hadhow markaad iibsatid oo meeshii wixii aad ugu baahneed aad ku rabtay inaad ku samaysid ma shaqaynayo ama easily si fudud buu ku jawaaya ama ku halaabaya sababtoo ah dusha sare unbaa laga qurxiyey gudihii waa eber telefoonada jiraan oo ayagana sidoo kale inta lasoo qurxiyey oo dhisaymo khatar oo isha qabanayaan oo soo jiidanayaan oo adiga aad ula cajabaysid laga soo dhigay hadhowdina waxyar kadib muddo yar bay iska halaabay waa tuuraysaa dharka sidoo kale productska markay badan yihiin gawaarida ku jirto wax walba oo adiga markaas aad loo dhaldhalaaliyey loo soo qurxiyey oo banaanka yimid durbadiiba ha ku kadsoomin u fiirso wax badanna dhan kastana ka fiiri ha ku degdegin baa laga wadaa marka su'aalaha kale waxaa weeye social media waxaa la yiraahday waxaa isticmaala dadka influencerska ah oo aadka ugu badan ama tiktokerada ama youtubeleyda dadka badan oo isticmaala waxaa la yiraahday they show perfect lives waxay ku tusinayaan nolol qurux badan oo perfect ah dhinac kasta ka dhameystiran but behind the camera is a different thing laakiin kaamirada gadaasheeda waxaa laga yaabaa inay nolol xun oo liidata oo aad u bahdelan ay ku nool yihiin laakiin markay kaamirada hor joogaan waxay ku tusinayaan nolol perfect ah oo aad u qurux badan halkan sidoo kale opportunities-ka waxaa la yidhaha iyagana fursadaha shaqooyinka oo kale they may promise high pay and quick success but it could involve stress and unethical work shaqooyin qaar ama fursado qaar waxaa lagu leeyahay lacag intaasaa qaadanaysaan isaana lagu sameynaya laakiin waxa